xanuunka COVID-19 ayaa la sheegay inuu ku dhex baahayo gudaha aqalka cad ee Maraykanka. La taliyaha dhanka dhaqaalaha ee madaxweyne Trump, ninka lagu magacaabo Kevin Hassett, ayaa axaddii sheegay in ay aad u adag tahay in lagu shaqeeyo aqalka cad ee Maraykanka kadib markii laga helay xubno aqalka ka tirsan xanuunka COVID-19. Kevin Hassett oo la hadlayo telefishinka CBS ee waddanka Maraykanka ayaa sheegay in ay aad u adag tahay in lagu shaqeeyo gudaha aqalka cad ee Maraykanka. Waxaan ahaan doonaa mid amni ah haddii aan ku shaqaynayo gurigayga. Warbixinta Hassett ayaa ku soo aadaysa xilli cabsi xooggan ay ka soo kordhayso gudaha aqalka cad ee Maraykanka, waxaana la sheegay in xanuunka COVID-19 uu ku dhacay afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo 3 qof oo kale kuwaas oo ka tirsan shaqaalaha ka hortagga xanuunka COVID-19 ee maamulka madaxweyne Trump. Ninka ugu sarreeya cudurrada faafa ee waddanka Maraykanka oo la hadlayay shabakadda CNN kaas oo lagu magacaabo Anthony Fauci ayaa sheegay in uu isagu iskarantiilay kadib markii uu la kulmay shakhsiyaad laga helay xanuunka COVID-19. taliyaha madaxweyne Trump ee dhanka dhaqaalaha Kevin Hassett ayaa sidoo kale intaa ku daray in aqalka cad uu nasiib u leeyahay inuu haysto kooxda caafimaad ee dunida ugu aqoonta badan